Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaantiin saaxiibayaal soo dhawaada. Kulanti wacan oo wanaagsan, isu soo noqosho wanaagsan ayaan idin leeyahay saaxiibayaal. Waxaynu socday koorskeenu 12 tense. Waxaynu soo qaadanay 10 cashar oo markaa waxaynoo harsan 2 cashar oo future perfect tense iyo future perfect continuous tense. Haddaba future perfect tense waxaynu qaadan doonaa maanta oo cashirkeena maanta ayaa ku saabsan. Haddaba future perfect tense waxaa loo isticmaalaa future perfect tense waxaa loo isticmaalaa ficil dhammaan doona waqti cayiman oo mustaqbalka ah. Ficil dhammaan doona waqti cayiman oo mustaqbalka ayaa loo isticmaalaa tense-kan. Haddaba usually waxaa loo isticmaalaa for an action ficil which kaasoo will have completed dhammaan doona at fixed point of time waqti cayiman in the future waqti cayiman oo mustaqbalka ah. Haddaba formulas waxa weeye subject plus will or shall plus have plus verb plus past participle plus object. Past participle waxaa loo yaqaanaa halka u dambeysa verbka ama actionka, halka u dambeysa ayaa loo yaqaanaa past participle. Haddaba dhammaan pronouns-ka waxaynu isticmaali doonaa shall or will. Haddaba aynu ka dhigno affirmative ugu horreyn. afarta pronoun ugu horreeya ayaan gelin doonaa insha Allah, adiguna inta kale example-lada ku dabaq oo gasho. Marka I shall have watched the TV the following hours. Waxaan daawan doonaa TV-ga saacadaha soo socda. We will have solved the problem next week. Waxay xalin doonaan dhibaatada next week, waxa weeye week soo socda ayay xalin doonaan. You will have reached Hargeysa tomorrow. Isagu wuxuu gaari doonaa Hargeysa berrito. She will have gossiping her teacher by the time I return. Iyadu waxay xamanisay macalinkeeda markii aan soo laabtay. Gossiping waxa weeye xamashada ayaa loo yaqaanaa. Haddaba aynu ka dhigno negative. Negative markaanu ka dhigano not baynu gelin doonaa. I shall not have watched the TV the following hours. Anigu ma daawan doono saacadaha soo socda TV-ga. We will not have solved the problem next week. Inagu ma xalin doono dhibaatada week soo socda. You will not have reached Hargeysa tomorrow. Isagu ma gaari doono Hargeysa berrito. She will not have gossiped her teacher by the time I return. Iyadu may xamaneyn macalinkeeda markii aan soo laabtay. Haddaba ugu dambeynta waxaa ka dhigi doonaa questions. Questions-ka aan shall or will ku qaadanayo pronoun-ka soo hormari, dabeetana ku xigsi pronoun-kii. Shall I have watched the TV the following hours? Anigu ma waxaan daawan doonaa TV-ga saacadaha soo socda. Will we have solved the problem next week? Inagu ma waxaan xalin doonaa dhibaatada week soo socda. Will he have reached Hargeysa tomorrow? Isagu ma berri ayuu gaari doonaa Hargeysa. Will she have gossiped her teacher by the time I return? Iyadu ma waxay xamanisay macalinkeeda markii aan soo laabtay. Haddaba saaxiibayaal, intaas ayaan cashirkeena maanta kusoo gabagabeynayaa. Intaanu cashirkiisa ku kulmi doonaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.